بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadkana daawanaya kusoo dhawa warka Dobiya Media barteen YouTube-ka iyo MDobiya bartakale ee Facebook-ka kuna soo baahino hadba dalkaada hooyo waxyaabaha ka dhaca qodobada aan idiin wadno waxaa kamid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulankooda warbixin looga dhageystay guddiga gurmadka ee qaraxyadii Soobe ka dhacay iyo sidoo kale wasaarado gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha iyo maaliyadda waxay looga hadlay warbixin la xiriirto ayaa idiin soo gudbin doona qaybna waxaa ka naqan doono Puntland oo fariin digniin iyo hanjabaad isku jirta u dirtay Somaliland kadib markii maanta degmada Boocame ee dib u qabsaday maamulka Puntland warbixin la xiriirto saraakiil iyo sidoo kalena mas'uuliyiin ka tirsan Puntland halkaasi gaartay warbixintaasina qayb ayay ka noqon doontaa dhanka kale madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi oo ka hadlay qaraxii Soobe ka dhacay isla markaana dadka shacabka waxyeeloobay warbixin la xiriirtana waa idiin soo gudbin doonaa u diyaar garoobo qodobadaasi iyo kuwo kale arrimaha Soomaalida quseeya oo idiin sii qarneen shirka golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre aydoona shirkaasi warbixin looga dhageystay guddiga qaranka ee gurmadka qaraxii Soobe iyo wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga iyo maaliyadda ayaa lagu jiray war qoraal oo laga soo saaray guddiga gurmadka qaranka ee qaraxii isgoyska Soobe ka dhacay 29 bishii hore aan soo dhaafnay golaha wasiirada warbixin halkaasi ka soo gudbiyay sida loo maareeyay howlaha gurmadka ay wadeen ayadoona tilmaameen guddiga qaran in qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay isla markaasina qabay dhaawacyadii darnaa in dalka dibadiisa loo qaaday ayadoona weheliyeen gurmadka ay socotay isla markaana ay dalka soo gaareen dhaqaatiir iyo daawooyin ka timid dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka laga soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriirto xoreynta iyo waliba xasilinta dalka ka dhageystay wasaaradaha gaashaandhigga iyo sidoo kale amniga ayagoona tilmaameen in si xooli ah ay ugu socoto howlgallada xoreynta iyo xasilinta golaha ayaana goobaha ay ku sugan yihiin argagixisada ayaa lagu qoraalka wasaaradda gaashaandhigga ayaa tilmaamtay in deegaano muhiim ah ay gacanta ku hayeen kooxaha argagixisada lagala wareegay ayadoona weliyaan socdaan howlgallo kale oo lagu xaqiijinayo amniga wasaaradda maaliyadda ayaana sidoo kalena waxay sheegtay in golaha wasiirada maanta warbixinta ay ku soo bandhigtay ee ku saabsaneyd halka ay marayso howlaha diin cafinta iyo safarkii wasiirka maaliyadda uu ku tagay dalkaasi Mareykanka oo kula soo kulmay hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ayadoona rajeeyeen in dhamaadka sanadkan dambe la soo dhameystiri doono barnaamijka diin cafinta ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaasina loogu hadlayay shirkii maanta uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre maamulka Puntland ayaa maanta fariin digniin iyo hanjabaad isku jirto u diray maamulka Somaliland kadib markii ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyeen deegaanka ama degmada Boocame ee gobolkaasi Sool dhawaan ay qabsadeen ciidanka Somaliland balse maanta kaga baxeen dib oo halkaasi ay gaareen ciidamada maamulka Puntland waxaana maanta degmada Boocame ee gobolkaasi Sool ay gaareen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo horkacaya taliyaha ciidanka maamulkaasi ninka lagu magacaabo Abshir Cabdi Jaamac iyo sidoo kale wasiirada xildhibaano ka soo jeedo deegaankaasi taliyaha ciidanka maamulka Puntland oo halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in marnaba aan la aqbalaynin in ay mar kale ku soo laabtaan degmada Boocame isla markaasina ay sheegeen in ay difaaci doonaan fariin cadna ka bixin doonaan waxaana xusid mudan in tan iyo sanadkii 2007 ee magaalada Laascaanood ee gacanta ay ku dhigeen maamulka Somaliland isla markaasina gobolka Sool ee halkaasi ee maamulka Puntland ka arriminayso kaliya degmada Boocame oo la qorsheynayo inay ka dhacdo dhawaan doorasho balse maanta ay dib u qabsadeen markii maalin dhaweyd laga qabsaday waa Soomaali si gaarana waxaynu joognaa calanka buluugga inaynu karaamayno ita ninka diidan oo maxaa la yiraahdaa Soomaalinimada diidan oo ilaahay anigu waa ka sareeyaa dadka oo anigu dadka intiisa kalena aniga iska leh iyo dhulkaba kaasaynu diidan
waxaan innaga iyo idinka iyo awowayaasheen iyo innaga iyo awowayaasheen midna soo ag istaagin baa maanta wiil arabikhi iyo haruur beerto gebile iyo wajaale dhexdood baa halkan kuu jooga iyo baki iyo ka yimi iyo xariirad baa halkan kuu jooga wuxuu ku leeyahay unaday halkaanaan kugu xukumi dalka ingiriis baa leh maxaa ingiriis baa dalkaaga adaa leh dagaal baa inoo bilowday mana noqon doono midaynu iska daawanno wixii hadda Soomaaliland waxay ku caan baxday inay noqoto hoyga magangelinta argagixisada dhaqaalay ku bixisaa waxa ummadda Soomaaliyeed lagu gumaadayo ama koonfur ha noqoto ama bari ha noqoto Soomaaliland iyada gacan siisa waxaan cadaynu hayno abadan si buuxa u hayno waxay noqotay hoyga argagixisada meesha argagixisadu marto iyaga faasilad gareeya iyaga soo dhaweeya iyaga kan bari u socda iyo kan galbeed u socda kala gudbiya iyaga dhaqaale iyo lacag ku bixiya iyaga raba ummadda inay dulmiyaan oo dad degaan iyo dhul ay lahayn iyaga doonaya anagu waxaan doonaynaa waxa kaliya aan doonaynaa wax weey Soomaaliya mida Soomaaliya hal dawladda Soomaaliya calanka buluuga hay sareeyo Soomaaliya waxdada oo maxaa la yiraahdaa dadkeeda iyo dalkeeda meel ay joogtaba uu leeyahay hal dawlad oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya taasana deeqda dhanka kalena madaxweynaha maamulka la magacbaxay ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu ka warbixiyay markii ugu horeysay qaraxii ka dhacay isgoyska Zoobe isla markaasina 29kii bishii aan soo dhaafnay ee qaraxyadii ka dhacay dad fara badan ay ku geeriyoodeen wuxuuna sheegay in uu ahaa mid fool xun isla markaasina dad shacab maata ah dhibaato xooggan loogu geystay Soomaaliya muqdisho wixii ka dhacay waa aragtay waa maqlaysay mashaqadii ka dhacday weyn dad shicib oo masaakiin oo mashaqada inta la ka dhacday maxdin iyo argagaxeeda qof wal oo bini aadam uu ku dabqalaya inaga oo diin iyo Soomaalinimo iyo jaarnimo iyo ehelnimo wadaagna aad baan uga naxariino uga mugana waxa dhacay maanta tabarteeda waa duco kaliya hadalkan ka soo yeeray Muuse Biixi madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa wuxuu imaanayaa xilli dhawaan wasiirka warfaafinta ee maamulka Somaliland ninka lagu magacaabo Koore oo sheegay dadka ku dhimanaya magaalada Muqdisho inay yihiin kuwa la mid ah sidii anyaha iyo taxsiga iyo kanicada u dhamaanayaan balse waxaana noqonaysaa mid ay ku kala aragtiwanaadaan maamulka Somaliland dhacdooyinka ka dhaco ee qaraxyada kooxaha argagixisada ka geystaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan caasimadda iyo waliba gobolada dalka intaasina ayaan ku soo gabagabeynaa warbixinadeeni anigoo ah Mustafa Maxamed ku soo jeedan iyo mar kale sidaas iyo nabadiin iyo kulan kale xiiso leh